بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliweyn waa mar kale YouTube-ka Abwaan Shooli waa xusuustii fankii hore iyo midda aan hadda maanta hayno qaybtii 9aad ah. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo dheh, like noo dheh, share noo dheh, commentiga waa noo muhiim saaxiib dhammaan intaas nagu caawiya. waaye fankii hore xusuustii fankii hore waxaan ka soo hadalnay qaybihii musicianka ahaa. allahu akbar dad waa dhammaaday. saaxiibada qaarkood oo aan commentigooda akhriyey ayaa waxay yidhaheen dadka kooxihii iyo sida la kala ahaa. waata kooxihii afarta aan idiin soo sheegay waa afartii ugu waaweyneed riwaayadaha tiyaatarka laga dhigo iyo kalaabyada ka tumi jiray hoteelada waaweyn ee dalka uu lahaa ayay ahaayeen. kooxihii dalka laakiin afargii waa ka tiro badnaayeen. allahu akbar. haddaan wax yar dib ugu noqdo kooxihii guud ahaan hadii waxaan malaynayaa ilaa 8 kooxood inay ahaayeen. bal aan xusuustayda dib ugu noqdo. kow gobolada waa beri, kooxda heegan, kooxdii horseed, kooxdii onkod, kooxdii halgan. shantaas waxay ahaayeen kooxo ciidamada u samaysan. halgan maahayna inta kale sidooda ay weli u dhisan yihiin. waa beri, danan, iftin, dayax, xusuus, الله المستعان. ودنا يضيح يحسوس دنا وحي آن كوحد أورو كده لنيارة كوحد يضيح وحي أورو كده دقاق إسكاشتوين كصومالية كوحد يحسوسنا وحي كوحد أورو كشقالة وبلده وابري افتين أو وزارة الوحبرشة إيا بربارنتا بربارنتا ماشي أسواي ماشي أنك aan ku soo cilmi qaadanay oo ku soo wax fahamnay oo indhaha ku kala qaadnay. barbaarinta xubintaas waa xubintaas weligay waa ku dhaganahay. alxamdulilah maanta dadka ka nool dadkiina soo barbaariyey Sayd Khalifa, Bashiir Ali Hussein, Maxamed Cabdow Salim, Ustad Aakhira, Daahir Ali Jimcaale, agaasimihiin markaasna oo barbaarinta agaasimo ka ahaa abwaankeenii weynaa Saciid Saalax Axmed. agaasimo waa ku salaamay macalinkeygii barbaariyahaygi maanta agaasimo waa ka sareeyay wasiir xataa ma dhihi karo maanta. Saciid Saalax Axmed wuxuu ahaa macalinkeenii oo na soo barbaariyey dadkaas dhan uu madax u ahaa. aniga dadkiina barbaariyey macalimiinta noo ahaa ayuu agaasimo u ahaa waagaas. waa adiga 8aadkii waayahay. marka kooxihii aan dib ugu laabtay iftiin oo ahayd wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. barbaarintaasi waxay ahayd waa wixii gacanka dadkii gacanta ku hayay oo heesaha baraayay oo mehrijaanaadka baraayay oo wax kastana baraayay. macnaha waa ceeljaalayaasha iyagaa ka macallin ahaa iyagaana wax baraayay. macallimiinteenay ahaayeen. aad baan qadarin weynna waa u haynaa maanta maasha allah. qadarin hadday jirto qadarin faneed qadarin baan u haynaa. waaye xaggii idhig waa kooxdii danan, kooxdii dayax, kooxdii xusuus, kooxdii iftin. afar soo maaha. waa beri, halgan, heegan, horseed, onkod. 9 alay 9kaas kooxood ayaa qarankan u dhisnaa. 9 kooxood waa beri laakiin waa beri maasha allah. waa beri waxay ahaayeen dhowr firqo. waa berida keligeed ama dhowr firqa ahayd. waa beri waxay ahaayeen mataanaha. waa beri waa beri star Somali Jazz. ilaahow been iga haay
انت صورن وخيبو وبري وبري على وضيها تياتر على وضي جوجا انت صو قيبودنا way ka shaqeynayeen oo group kastaba waa gaari u dhisnaayeen oo musician-koodii iswata qoladii timaada wax loo tumaa oo wax wadata oo barnaamij wadata ayaa loo tumaa hadaad aroos wadato waa lagu soo tumaa hadaad riwaayad wadato waa lagu xifdinaa waa lagu tumaa waa lagu samaynaa waxaa joogay hadda rag qaalihaa joogay oo qaybahaas oo dhan oo ka kala dhisnaa waayahay kooxii waddanka waxaa iga soo maray aniga shooli ahaan iftiin waaba barbaarintayda xagga iska dhig waxaa isoo martay dayax mushaara ka qaatay macalinkayga CD caliwiinkayga waday oo aan raacay aniga asaga CD iyo anigaba mushaara ka qaadanay kooxdii dayax haddana waa joogi weyne waa ka tagnay danan ayaan private kula shaqeeyey danan kooxdii danan ee ururka dhalinyarada private kula shaqeeyey kooxdii onkod private kula shaqeeyey ciidanka asluubtay ahaayeen aniga anoon askari ahayn asluubta ka tirsanayn ayaan si private kula shaqeeyey aniga ustaad cali xaaji maxamuud ilaahay u naxariisto subxaanahu wa tacaala ustaad calina uu dhintay aniga iyo ustaad cali si private ayaan kula shaqeynay kooxdii onkod marka waxaa xaaladeenu maraysay kooxdii onkod inaan si private aan kula shaqeynay aniga iyo ustaad cali marka waxaan private kula shaqeeyay marka danan iyo onkod dayax mushaara ba ka qaatay shaqaalaha ba ka noqday private ma ka noqonin waxaan kaloo private kula shaqeeyay kooxdii isoo barbaarisay oo barbaarintaydaba lahayd oo iftiin ahayd waxaa kaloo ka nool ustaad cabdirasaaq axmed geedi aakhiro maasha allah duqa weli waa jooga abwaan khaaliya oo aad u qiimo badan runtii macallimiinteediina barbaarinteennii lahaana ka mid yow dadku inay isqaadqaadaan oo wax kale iska dhigaan waxba qiimo kuma laha laakiin inaad dadka adiga kaa horeeyey fankaa ku ixtiraamto ayaa dadnimada ugu fiicanba hadday jirto dadnimo tan ugu fiican waa inaad dadka ku ixtiraamto wixii lagaa soo maray adiga adoon isxariifinin wax kale iska dhigin dee nidaamka saas u fiican yahay anigu markasta waxaan qabaa mabda'a qofka inuusan waxuusan ahayn iska dhigina dadkii oo adiga kugu soo barbaariyey inaad qiimayso ood qadariso ood sheegto walba wax kale muu awoodide wax kale uma hayside inaad qadariso macallinnimadooda aad ku ixtiraamto aad tiraa haye macallin ma nabad qabtaa haye macallin waa caafimaad haye macallin waa ixtiraam ha lagaa hel bis soomaalida ma ogtahay soomaalida wax dhib badan waa yow adduunka kale dadku waxay yaqaaniin soomaalida aan ahayn hataa mararka qaarkood soomaalida waa lagu caaya waxaa la dhahaa raalli ahaw iyo maxaa la dhahaa iyo waa mahadsantahay af soomaaligiina ma ku jira miya dadka ajnabiga oo dhowr qofood oo sheekadaas ka sheekeeya xataa waa soomaalida afka soomaaliga ma ku jira miya thank you iyo excuse ma ku jira miya af soomaaliga waa ku jira raalli ahaw iyo waa mahadsantahay labadaas leeba waay maba khuurnaba waxaa dhibaatadana geliyo dadka dhan aan uga duwanahay adduunka dadka joogo waxaan uga liidan oo hawaaye dadka dhan waa isla qab weeyihiin war adduunka qaba faca kaa reebay soomaaliyay saas ma ah wax badan dib u fiiri marka ayaana kusii dheeraanayna raalli iga ahaado waxoogaa dadka dhaqankeenaa xumaaday dhaqanka soomaalida ma u fiicnaan jirin ma aqaan dadkaan hadda miyaa waalan ma aqaan waxaa la rabaa qofka haddii uu wax ku tarayna inaad qadarisidoo sheegtidoo tiraa waa mahadsantahay macnaha dadkii adiga waxa shalay adoon waxba ahayn oo cunug yaroo 8 jir oo hees ku soo baray maanta muusiga maanta aan fanaaniinta Soomaaliya uga tirsanahay waxaan hadana ubaxa kacanka aanan ahaan lahayn oo muusiga free iga dhigleen wargal tobo baro waxaad ka baranaysid ka baro garac leedii lahayn oo macallimiintaas ay leedii lahayn gal maanta maxaa ahaa laha alaabta abaha ma iska lahayn hooyadaha leh waxaa koox dhanaa leh dowladaha gaday dowladaha leh laakiin rajii kuu oo ku dhahay gal baro waa kaas qolkaas ku xareysan tahay ku dhahay de iyada laftirkeeda abaal waaye
waxaad ku baratay maanta waxaad ku tahay nin oo lagu sharfay oo lagu qiimeeyo heblow iyo shool iyo waxaasaa lagu dhawaya haddii shan lagu dhihi lahaa waraa ka bax meesha qabiilkaaga wasi soomaalida qabiilkaygu malaha aada u jecel yihin war socoriya qabiilkaaga wasi haddii lagu dhihi lahaa kawar waxba meesha ku malihidi ma gelaysid mana tumaysid ka bax meesha haddii lagu dhihi lahaa kawar ma waxbaad baran lahayd may shooligaagaad iska ahaan lahayd okay laakiin macallimiinteedu waxaan aada ugu mahad celinayaa fanaaniintaas waaweyn ee sharafka leh ee qiimaha leh oo aan ku ixtiraamo aan ku cizaynaya waxay ahaayeen gal soco baro way u dhiirigelinayeen macalinka kan ku dhiirigeliya macalinka ugu fiicanba ah marka aad ay mahadsan yihiin macallimiintaas sharafka leh sayid khaliifa bashiir cali xuseen iyo hadda ay ka nool yihiin maxamed cabdiwasaali dadkii kale hadda waxaan waaba dhumiya u malaynaa wax badanaa aqranay cabdiqaadir sanka iyo xataa isagana gruubkaasoo ku jira macalinka allah yarxam waa dhintay ilaa hadda waa isla shaqaynaynay ilaa uu ka dhimanaya habeenkii uu dhimanaya xataa ani waxaan ahay batariistihiisa anaa batari buu tumaaya ilaa habeenka uu dhimanayo anaa u shaqaynayo habeenkaas shaqa la-aanaan ahayn waxba shaqaa lama qabanayn habeenkaas habeenka ka horreey ayaan aroos waxaan ku lahayn hotel wardheera meesha hadda laga dhigay iyadoo qabyo ah sar ma dhammaataa la dhihi jiray xilligaas hadda hotel wardheera la yidhahdo waa hotel laakiin waktigaas habeenkii aniga cabdulqaadir sheekh cali cismaan raxmatullaahi calayhi ee isugu keen dambeysay aan aroos ka tugno waxay ahayd hotel wardheere waddanka maxaan kasoo tugnay maxaa la dhahaa lafweynaan ka tugnay ramadaanaan ka tugnay shaamoan ka tugnay saxafiyaan kasoo tugnay maxaa hotel globalaan kasoo tugnay maxaa arki kartaa iidi iyo sanka labadaas ninba aadaan ula soo shaqeeyey oo barnaamijyo badan ayaan isla soo qabanay fanaaniintaas aadka u qiimaha badan labadaba waa fankii hore marka kooxuhu way badnaayeen marka aniga waxaan toos ula soo shaqeeyey danan dayax maxaa la yidhaahaa onkod heegan xitaa waxaan la shaqeeyey barnaamijkii 87 ciyaarihii gobolada ee laga furayay istaadii muqdisho dadka xataa maxamed siyaad allah naxariistay ay qaarkood ku furfuriyeen oo meesha xataa fawda noqotay oo xabado la isku furfuray maalintaas meeshaasaan joogay waxaan ahaa batriistii heegan maalinkaas barnaamijka u tumay aniga e c d macalinkeena wuxuu ahaa xasan xulusow xuseen tarafiko ilaahay u naxariistay isagana wuu dhintay macalinka ubaxa degmada waa beri cabdi xuseen jaamac cabdallah la dhihi jiray iyo cabdi xuseen waa heesaha iyagaa culinayay labadaas ninaa noo samaynaya balaagaa ka horreeyey macalin cabdi xuseen xataa macalin balaagaa kasii horreeyey laakiin aniga waktigeyga wuxuu ahaa macalinkeyga cabdi xuseen iyo xasan tarafika oo labadaba macnaha maxay samaynayeen maxayga heesaha iyagaa noo alifaan marka xasan tarafika ayaa ahaa sarkaal booliiska ah oo ka tirsan kooxda heegan wuxuu na siinayey wuxuu nagu qalqaalinayey heegan anigii sidii waa nagu qalqaali soo baxa kooxaan idinku dara heeganaa idinka dhiga dad khataraatiin dad u qalmaatiin runtii waxaan noqonay anigii walaalkay sidii caliwiinkay laba qofood oo shaqada fahmay anigana baterigaygaan wax ka fahmay macalinkayga ordinkana si fiican isna u fahmay haddana waa isfahmnay dadka moogtahay muusikada waa la wada tumaa laakiin isla tunka waxaa ka muhiimsan isfahamka ee ragga organka hadda aniga organistayaasha waxaan aad u fahmaa oo aan aad u jecelahay mar kasta inaan isla shaqeyno dadkii aan isla shaqeyn jirnay bro masalan abuukaryara nin la yiraa oo waa beri ah waxaan isla soo shaqeynay burburkii oo dhan abuukar xaaji cabdulqaadir abuukaryara allah aadaan u salaamaa saaxiibkay waay waa isla shaqeyn jirnay waxaan kaloo la shaqeeyey nin la yidhaha daahir muuse cabdulle daahir yare waa la soo shaqeeyey waxaan kaloo la shaqeeyey nin la yidhaaha cali buule waxaan la shaqeeyey walaalkay allah naxariistay uu dhintay kaasna waxaan iskala soo baxnay maxamed xasan macow maxamed weli waxaan iskala soo baxnay asaga cd aniga kulli waxaan ahayn jamaaca degmada waa beri kasoo wada aflaxay ubixii degmada waa beri aan wada ahayn muusiga meeshaan ku wada baranay marka kooxihii hore iyo fankii hore waxay ahaayeen sagaalkaas koox mar kalaan kuugu celinaa aad iila soco
وابري هيجن هرسان أنكر هلجن محلا ضيح دمر حصوص يفتي سجال كاس كوح أي فنانين الصومالية يقرن الصومالي كوحيه سي كل الدولة أي كقبناية واحد ديرك وأحمرك كوحي عن كل شيء برامج كيو روايتها تومي جري واحد ديرك مقطعي سديتنات كيو وحد قلبتي سديتي شنتي عمل كوح ليرا تندر كوح لا سواي كوح عن رومرك الشركة إنا وسود دبو كوح لا سبحان شقينا من كتاب وتومي روبرتو تاعي روبرت waxaa kooxdaasi samaysay gabar la yiri Zara Bansa waa koox oo qalabkooda casri ah oo markaas dibadda laga keenay oo la isku abaabulay Farax Boore min la yiraahdo organisto ah Ustaad Ali min la yiraahdo organka labaad tumay Macallin Maysar Sharif Bakari Ali Abtore إلى هذا بيرك ولمن تيفو معلم تيفو إلى أكون حريص معلم تيفو أستاذ شعيب شن كتاريستا صومرتي كوحلاس شن كتاريستي أو صومالي روبرتا لحقو هاي معاكو ده علي أطوري شعيب شريف بكاري معلم ميسر إيه علي أطوري شن كتاريستا أو صومالي iyo waxa soo maray Robert kooxdaas saddex kitaab laga tumiyay Statifo Allah ma xariiska asaab koordo macaan koordo hay asaga koordo iska hay awal adigu ma fahamsaneen waxa qabtaan la biga aheed mar damba macnaha bay dhacay macallin Yusuf Abdi Haaji Yusuf Aliyewi ninkaas waxa dhan ifaalsiyo shaqada waxa la wada dhan hadagaysanin bal hoos waxa socdo dhigayso macallinka kelmadaas wiliga bilaaway waa marka fanki muusigada sida wax ku fahmay buu awal ani tanta tan le maqlay tan ma jirto jamta aad maqlaysid wax jiraba ma hoosa wax ka socda waxa hoos ku guuray dhagayso muusiga waxa waa macaantiisa kan hoos guuroy oo hoos la ka socoto oo waxa dhanka hoos socda aad muusiga macaaninahay kaas dhagaysto على عموم كوعني تندر وحب تريستو هاي مات أبابكر عبدو بكوريا مرسل من ليرة أو وزار أو إفتي أها معلمينتي أو إفتي كتر سنة مرسل هي ريدم بوكس درام بالتالي إلكتروني قلت معي مرسل بس من ليرة أو إفتي بونجا قلت معي isaga xataa waa yimid meesha tandarta oo drum oo bonga tumay waxa kaloo joogay kuwan maxaa lahaa Abdullahi Abdaani nin la yiraahdo beesku tumay markii dambe Shamuur Aboos nin la yiraahdo oo madax kooxda heegan oo hadda alxamdulillah waa nool yahay Aboos Shamuur ali heegan beesku tumay oo hadda madax u ah heegan dhamma ninka haysta نكاسة بركي دم بتندر بس كنا محنك بقى بس محنك إلا هذا أصلي مع يوسف واسكت في الضد وبعض كده قولني لنا في كده حاسس كمرسا وهي هاي حسوس فنكي هور وشكلنا وكل هذا ما ترتي أنت هنا جبت بري أي هذا إن شاء الله خير تدمر وحنك بالله بدونا تندر إن شاء الله الفلانكين دونا تنظر يسدي حال كيلو ها حاجة ينوجد ويوتيوب وشول فضل عندي أنا عصبتي فضل سبسكرايب نوده لايك نوده شير نوده كومنتي ونو مهم يوتيوب وشول سعر سرس عنا فنك يكوري يسدي كالعهايين هو فلانكين خيبها تنباركو فلانكين دونا لكن جودها هاي اللي شيء إن سجال كوعهايين كوعدي تندر أو ديران أنا شكرا يدي تاسع إذا كان بالله دونا هدي الله إنه السلام عليكم ورحمة الله سوماليين